عن أمهات علينا يا جودي شرفت له تاكلين تعيد ماذا سواء قاسمي شركة حفلة آتك أقرح لبضن وعنا كان كسلام يا دمان مدحض قرنك اللي بعنا ذا لبض أقل قلها وزير ذا تلياش عيد ماذا يا دمان سراكيشة قدوميها قبل كبنادر قدوميها قبل كبنادر يا دمان بعض الصحافة بمبيدا هوين كصوماليات وهالكن صاع عمري يا دمان شعب كصوماليات عدي يعني لا كل جنواد السلام مركورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنت أسكسكو وحان سلام دين كجسدا مدحونا جمهورية الفدرال كصوماليا oo isagu ahaa ciddii guddigan halkan aad caawa ka maqlayseen howlaha ay soo qabteen halkan isagu ahaa ciddii ku soo saartay wareegto ama ka maamusay waxaan rabaa inaan ku bilaabo marka ugu horeysa inaan u mahad celinno raggaas iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo aan ognahay duruufaha ay ku shaqeeyaan oo aniga xafiiskayga iigu yimid anigoo ka warqaba dhibka ay soo mareen anagoo og in uu madax u yahay Generaal Axmed Jaamac oo noloshii hore ee Soomaaliya qayb libaax ka soo qaatay ayuu weli wuxuu huri waayay inuu indhihiisa ka laabto Soomaaliya maanta meesha ay joogto markaasuu mar labaad sidii nin ciidan cusub qortay wuxuu madax u noqday guddiga taakulaynta qaranka si dib loogu dhiso ciidamada qarabka sida Soomaaliyeed asaga marka tusaale u ah muhiimadda ay leedahay munaasabadda aan caawa halkan isugu nimid taasi waa arrinka aan rabo inaan ku bilaabo intaas ka sokow halkan waxaa taagan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa dhinacyada taagan oo qaarkood ay aad u dhalin yar yihiin oo labisan dharkii militariga iyo booliiska iyo asluubta waxay kaliya ka yihiin tusaale hal mid dharka ay gashan yihiin waxa uu idin sheegaya oo idin sheegan annagu waxaan bixinay oon diyaar u nahay inaan ku bixino qarannimada Soomaaliyeed nafteena iyo dhiigeena idinku maxaa diyaar u tihiin وإذا كوسا علينا يا هدي ويل دلنيا رو Soomaaliyeed oo noloshiisu ay tahay meeshii ugu wanaagsanaa oo 20 iyo gabar Soomaaliyeed oo da'deedu ay tahay meeshii ugu wanaagsanayd oo hooyadii iyo aabihii soo koriyay ay yiraahdeen waxaan raalli ka nahay inaad naftaada ku bixiso qarannimada Soomaaliyeed waxaan mar labaad isweydiin leh haddii hooyo iyo aabba caruurta soo kariyay ay taas garteen haddii iyagu ay wax walba ka doorteen inay naftooda bixiyaan idinku hadaatiin ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan maxaad u ogoshiin qarannimada Soomaaliyeed caawa su'aashaan raba in halkaa la isku weydiiyo looga tago waa su'aashaas iyada waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo markii aan bilownay shaqada dawladnimada oo madaxweynuhu aniga ra'iisul wasaare iyo magacaabay waxaan idin sheegnay inaan ka shaqeyn doono waxyaabaha soo socda inaan ka shaqeyn doono inaan bilowno sidii darka loogu sameyn lahaa shuruuc
shuruucdaasoo nagu caawisa inay naagto xukuumaddu waxay maraysaa inay dhammaystirto in ku dhow 20 sharci 6 bilood gudahood waxaad arkaysaan waxaan soo dhammaystiri rabnaa 20 sharci oo mid walba uu wax ka bedeli doono shacabka Soomaaliyeed waxaan idin ballan qaadnay oo aan sheegnay sida dadkii walaalahay halkan ka hadlayay naga horeeyay ay sheegeen inaan wax ka qaban doono mid ka mid ah astaanta qaranka mid ka mid ah waxa isku haya shacabka Soomaaliyeed amniga magaalada Muqdisho waxaan bilownay inaan ku bilowno xoog xoolo iyo maskax Soomaaliyeed oo kaliya inta aad dareemaysaan in amniga magaalada Muqdisho wax laga qabtay waxaan dadka Soomaaliyeed ugu bishaareynaya oo aan rabaa inaad ogaataan inaanay jirin cid dibadda ka timid oo wax ku darsatay dal iyo qofba waxaa lagu sugay amniga maskaxda ciidamadeena iyo madaxdeena xoolaha canshuurta laga qaado shacabka Soomaaliyeed iyo dhiigga wiilasha iyo gabdhaha dhinacyada taagan waxaa ka fikiraysaa marka haddii aad igu raacsan tahay in amniga magaalada Muqdisho uu ka soo roonaanayo annagoo tabarteenu yar tahay waa inaad igu raacdaa haddii annagu aan isku tashanno inaan gaari karno meesha aan rabno waxaan idin ballan qaadnay inaan ka shaqayn doono dawlad wanaag oo qof waliba oo dawladda u shaqeeya mushaar la siin doono أنا كنت ذلك دونا إن قفل بقى ومشار لسيه ودولة وشقيق وعن رواينا إن شعب كصوماليات ميلو البيجوان وشاقو إن سنة كان لبدا كون يتضبية طوانكو وهان دونا السنة قفل بقى ودولة صوماليا وشقيق هذا عيدا يا شعب أما خرج دولة اللي هي أو أي شيء لبدا كون يتضبطها إنه نقول دونا سند مشار والبنا اللي بحيي خرج والبنا اللي بحيي دولة الصومالية أنا عن وحدين أهل قليل وهذا كوسو علينا يا سند كلا بضا كوني تضبطها هدي لا يرادو بيش ديسمبر صدني كوديد تضبطي تونك labada kun iyo 17 December 31 hadii Ilaahay yiraahdo waxaan ku soo dhameystiri doonaa halkana waa ka sheegaya hadii aad dawladda u shaqeysay in mushaarkaadii aad heshay Janaayo ilaa December hadii aad ciidan tahay iyo hadii aad shaqaale tahay hadii aad ka shaqeyso xafiis dawladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaada uu ku socdo oo xaq u leedahay intaas waxaan ku darayaa in aanay maamulka aan anaga iyo madaxweyne Farmaajo mas'uulka ka nahay 2007 in aanay kharash deyn ah dalka Soomaaliyeed u keeni doonin waxaan idin ballan qaaday markii aan ra'iisul wasaaraha noqday inaan ka bilaabi doono 6 bilood oo ugu horeysa in dadka shaqo loo abuuro waxaad marqaati ka tihiin gobolka Banaadir inuu bilaabay shaqaalaysiintii kunkii ugu horeeyay waxaan idin ballan qaadayaa sanadku inta uusan dhammaanay inaan ku dhawaaqi doono in kumanaan kale laga shaqaalaysiin doono gobolka Banaadir iyo gobolada dalka oo dhan waxaan idin ballan qaadnay inaan la dagaali doono musuqmaasuqa waan bilownay waxaa weli na hortaagan waxaan u dirnay baarlamaanka inay soo ansixiyaan sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa si loo abuuro guddi xor ah awood u leh inuu qof walba daba galo soo qabto soo xiro maxkamad keeno haddii lagu arko musuqmaasuq sidaas daraadeed waxaan leenahay baarlamaanka Soomaaliyeed fadlan ansixiya sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa
waxaan rabaa marka inta aanan u gelin 6 bilood oo soo socota inaan idin sheego waxyaabaha soo socda markii aan shaqada bilownay waxaan ku bilownay inaan niraahdo dalkani waa inuu ku dhacaa dariiq uu isku filan lahaa inaan shaqo abuurno waa muhiim in musuqmaasuqa lala dagaalamo waa horumarka koowaad ee ummadda Soomaaliyeed laakiin si dadka Soomaaliyeed oo 75% dhalinyaradu ay u badan yihiin ay dalkooda qayb uga noqdaan waa in dhaqaalaha dalka la kobciyaa si dhaqaalaha dalka loo kobciyo waxaan rabaa mid inaan idiin sheego midna inaad igala qayb qaadataan mid waxa ay tahay waa inaan xoogga saarnaa in dalka dib loo dhisaa waa inaan ku bilownaa kobcinta dhaqaalaha in la soo nooleeyo dib u dhiska dalka waa in la dhisaa jidadka iskuulada isbitaalada waa in la dhisaa hay'adihii dawladda oo ah magaalada Muqdisho iyo gobolada dalkoo dhan dalkeeni ayaa bilicdiisu soo noqonaysa adeegyadii bulshada ayaa soo noqonaya dhaqaalihii ayaa kor u kacaya ummadeenana shaqo u abuuraysa maadaama aan idinkaga sheekeeyay dawlad wanaag marsiyotaan ma jiraan waxa ku marmarsiyotaan waxaan marka codsanayaa Soomaaliyeed haddaad rabtaan inaan ka baxno qabyaaladda haddaad rabtaan inaan ka baxno waxyaabahan aan ka soo sheekeynayo oo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku haya oo musuqmaasuq uu ka mid yahay dariiqa kaliya oo musuqmaasuqaas aan uga bixi karno Soomaalinimada aan ku gaari karno qabkeena iyo sharafteena iyo karaamadeenna aan ku soo ceshan karno waxay tahay inaan dhisano ciidan qaran sida kaliya oo aan adduunyada dib ugu soo noqon karno sida kaliya oo aan ku xoroobi karno sida kaliya oo aan dib sharaf ugu yeelan karno sida kaliya oo aan dalkan horumar ku gaarsiin karno waxay tahay inaan dhisano ciidan qaran annagu marka haddii aan nahay mas'uuliyiintii aad igmateen oo idinka idiin shaqaynayay waa ka soo baxna qaybteennii inaan idiin sheegno kow dhibaatada dalka haysata iyo meesha dalkiina uu taagan yahay iyo inaan diyaar u nahay siday ciidankana diyaar ugu yihiin annaguna inaan nafteenna siino dalkeenna laakiin dal aan shacabkiisa u istaagin shacab aan dawladdiisa garab istaagin shacab aan kala dooran xumaanta iyo samaanta shacab aan intay istaagaan dhihin kama noqon karno dhexdhexaad dalkeenna god ku dhacaya dawlad ma yeelanayo dawladnimadii Soomaaliyeed waa muuqataa shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay maantay noogu dhowdahay aan gacmaha isqabsanno kulligeena intaas ka sokow waxaan rabaa inaan idiin sheego dalkani wuxuu soo maray dhibaato badan laakiin waxaan maraynaa sidaan idiin sheegay meel rajadu ay leedahay iftiin laakiin kaliya ay maqan tahay in gacmaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay isqabsadaan ha ka walwalina haddaad maqashaan siyaasiyiin ama dad kale oo marmar dhahaya dhibaa jira meel laga shaqeeyo oo aan dhib ka dhacayn ma jirto laakiin su'aashii waxay tahay ma jidkan ka habowsanahay mise jihadan ka habowsanahay waxaan aaminsanahay 27 sano markii aan ugu fiicneen ayay tahay oo aan jidka ku taaganahay jidkaasi hal ahaado boholo hal ahaado buuro ha noqoto marmar mugdi iyo gudcur marka habeenkii lagu safrayo waxaan idiin sheegayaa laakiin jidkii baan ku taaganahay waxaan idiin ballan qaadayaa midda soo socota idinkana waxaan idinka codsanayaa hal mid waxaan idin badan qaadayaa inaan ku taagnaan doono jidka dawladnimada Soomaaliyeed u muuqato
waxaadin ballan qaadayaa shaqadeena ugu horeysay inay ahaan doonto difaacidda sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed xataa haddii ay kalifayso in la gaajoodo. waxaan idin ballan qaadaynaa danta ugu horeysa oo mar walba ka shaqeyn doona inay ahaan doonto danta ummadda Soomaaliyeed. idinkana waxaan idinka codsanayaa sida soo socota. idinkana waxaan idin sheegayaa haddaad tihiin shacabka Soomaaliyeed meel walba joogtaan inaad sabaabushaan inaad hurdada ka toostaan in maalin walba oo idinka khasaarta ay ka khasaartay caruurtiin in haddii aad fiirsataan dib aad wax ka qaban kartaan idinku aad qayb ka tihiin dhibkaas inaad ogaataan sida kaliya oo dawladnimada lagu gaari karo inaan kicinno hir dawladeed oo idinku ugu horeysaan waa inaadan guryihiina ku jirin in aad u istaagtaan dawladnimada waa inaad ogaataan cid walba oo aad ka maqashaan inay qeylinayso waxay rabtaa inay damiso iftiinka dawladnimo mana ka aqbalayno qof walba oo Soomaaliyeed oo nagala shaqeynaysa dawladnimada waa soo dhaweynaynaa waa karaameynayna qof walba oo Soomaaliyeed gacmahan u fidaynaa حتى هدي أن كلا فكر دولنا وحولبا وأقبلنا ميل والبنا وأقولنا دولة نمدا كلية وعنا نقبلين إن دولة نمدا جد كلا جلها مرجعين تاس مرك بلنتين أو نقطة وعن ربع مر لبعض هنا عندنا حساسية ولا عليك الصوماليات